السلام عليكم maanta waxaan idin wadaa sheeko qurux badan sheekadan waxay dhaxmartay haweeney iyo ninkeedii haweeney ku nool magaalada Yola ee gobolka Adama ayaa qaadatay taleefankeeda ninkeeda oo ay eegtay dhaqdhaqaaqiisa Facebook waxay aragtay sheeko jacayl oo dumar uu la sheekaysanayo intay fadhiisatay ay ka fikirtay sidii ay isaga iyo dumarka u kala saari lahayd waxay la timid fikrad aad u qurux badan iyada oo aan xitaa ogeysin ninkeeda waxay la timid hababkan soo socdo kow waxa ay sameysay waxay koobiyay dhammaan sheekooyinkii uu la yeeshay mid kamid ah dumarka laba waxay furatay Facebook account cusub oo magac lab ah ay ku qoratay saddex waxay u dirtay cod saaxiibtinimo ninkiina wuu aqbalay afar way isbartay waxay tiri anigu waxaan ahay Abu Darda magaciisa waxaan ahay xubin ka tirsan Boko Haram waxaan arkay dhammaan sheekaysigaaga xaaskayga waxaan rabaa inaan kaaga digayo in aad ka fogaato iyada haddii aad runtii rabto inaad sii noolaato shaki la'aan waxaad haysataa dhammaan sheekaysiga ilaa iyo halkanna waad arki doontaa shan haddaba haddii aad joojin sheekaysiga xaaskayga waxaan kuu gowracayaa sidii wanka lix waan ku garanayaa waan ogahay magacaagu wuxuu yahay Jamiil aabaha waa Maxamed hooyadaana magaceedu waa Khadiija waxaad leedahay saddex caruur ah Alaamin Zahra iyo Yuusuf Cabdiraxmaan waa saaxiibkaaga ugu fiican Usaami waa dariskaaga waxaad tahay bare ka shaqeeya FCE waxaad sidoo kale aadaysaa shaqada 3:00 subaxnimo adiga iyo saaxiibka Usmaan waxaad raacaysaan wadada Jambuutu oo waqti ayaad isla qaadanaysaan waxaan kaaga digayaa haddii aad ku dhiirato inaad wacdo qoraal ama aad la sheekaysato xaaskayga mar kale waxaan kuu gowracayaa sidii wanka oo kale sidaan hore u sheegay xaaskiisii ayaa u dhaweyd isaga oo fariintii akhrinaya intuu akhrinaya ayuu sii dhuuxay oo uu ku celceliyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxay weydiisay maxaa dhacay ay ku tiri waxba muusan odhan isla markiiba waxa uu tirtiray bartiisa Facebooka iyo WhatsAppka iyo barnaamij kasta oo kale iyo baraha bulshada dhamaanba subaxii xigay ayuu aaday oo telefoonkii suuq intuu aaday u bedelay wuxuuna soo iibsaday Nokia caadi ah waxa uu sheegay xaaskiisa in mar walba ay toosiso mar kasta oo la gaaro waqtiga salaada haweeneyda ayaa sheegtay tan iyo maalinkaas ninkeeda inuu si joogto ah u ilaalin jiray salaadaha waqti badanna uu la qaadan jiray qoyskiisa haddaba waxaan rabaa inaan fariin u diro gabdhaha Soomaaliyeed taasi miyaani ka wanaagsanin in arinta mindida lagu xaliyo gabadhu sameeyeen ahayn gabadh smart ahayn haddaba ninkaaga haddii aad ku aragto arrimaha noocan oo kale ah maxaad sameyn lahayd ma sida gabadha caqliga badan ayaad arintaas sameyn lahayd mise inta mindi la buudo ayaad dalaq siin lahayd intaan sheekadani sheeko kale ku kulmayno waxaan idinka tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh